بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وهبون أخياري ومركن إيا برنامج كيني أوغالكا دعدويكا دونيدا أي نكور كيدا سارنا كارهان مقالكنا وحينو كو إيجي دونا إن فرعونكي ومدى ريم مصر مركي نحاشك اللغوري دي أما صندوقي هالكاسي لديجي إن فرعون وحو أها نين قوقي oo kibiray aad ku yir badan waana mar wuxuu sheegtay ilaahnimo marna wuxuu sheegtay rasuul markuu ilaahnimada sheeganay waa ka yiri ana rabbukumul a'la ayuu yiri subhanallah marna wuxuu yiri qaala inni rasuulun min rabbil alamin marka fircoon wuxuu ahaa qof qooqay oo kibray hadaba qof nafafkii ugu horeeyay ee sanduuqii lagu riday booqda iyo muujisada ay ku arkeen ay halkul kula wadaagi doonaa fadlan channel subscribe sar oo nala joog 26 November sanadii 1922 archaeologist Howard Walker nin lagu magacaabo oo Ingiriis ah iyo taageerayaashiisa dhaqaalaha Lord Cavon ayaa galay qabriga Fircoon waxay ahaayeen nafafkii ugu horeeyay ee gala qabrigaasi Fircoon iyagu sida ay leeyihiin waa qabri laakiin sanduuqii lagu riday nafii horeey ee booqda in ka badan 300 oo sano 300 oo kun oo sano meydkiisa halkaasi la dhigay Rabbi subhanahu wa ta'ala waa tiiri waanu badbaadinaynaa jirkaaga sida ay ugu dambeeyay adiga ay kugu cimri qaataan markii wararkaasi ay soo baxeen kadib oo si weyn u soo shaacbixeen helitaanka wararkaasi Fircoon inuu wali yahay sidiisii jirkiisina wali uu isbedelin oo qof shalay dhinto kale u eeg yahay ay dunida ku faaftay saxaafadii xilliga jirtay si degdeg ah ay u kicisay sheekooyin ay ku sheegeen habaar hooyooyin xunxun ay sheegeen qoraaga caanka ah ee Mary Corley ayaa isaguna u sheegay markaa mid ka mid ahaa wargeysyadii xilliga iyaguna jiray ee reer Masar ee ugu afka dheeraa waqtiga ayuu u sheegay inay ka dhigantahay Lord Cavon ciqaabtii ugu xumayd ee ay la socotay baa la yiri qof kasta oo gala xabaasha ama naxashka halka uu Fircoon joogo waa sida u dhigan inuu yahay mid habaar qaba iyo sidoo kale Sir Arthur Neil Cavon la yiraahdo isagana doole oo isna go'aansaday in dib raal noqdo isagana go'aansaday Lord Cavon dhowr bilood kadib ayuu sheegay Lord Cavon ninka la yiraahdo bishii Abriil sanadii 1923 waxay ahayd baa la yiri jiitadii ugu horeysay ee qalab xun lagu arko oo ay dhigeen baa la yiri wadaadadii hore ee Masaarida si ay u ilaaliyaan xabaasha boqorka da'da yar ayay ku sheegeen halkaasi daawadayaal dhowr qof oo gashay sida iyaga ay leeyihiin meeshii uu sanduuqu yaalay ama qabriga si uu leeyihiin ama lala xiriirinaya la yiri kooxda Cavon inay yihiin ayaa dhintay la yiri siyaabo qarsoodi ah ayayna u dhinteen ay leeyihiin ama rabshado yar kadib ayay dhinteen markii la furay sanduuqaas kuwaas waxa kamid ahaa la yiri nin lagu magacaabo Sir Archibald Douglas Reed sanadii 1900 isagana 24 waxa la yiri uu xanuunsaday isla markiiba wuxuu noqday kadib mid rajadii hooyada ayaa lagu yiri oo ayuu noqday ee uu raajada u saaray waa sida ay leeyihiin iyo ninka kale lagu magacaabo Arthur Mary isagana oo khabiir reer Masar isaguna ahaa ayaa xilliga iyaguna waxa la leeyahay halkaasi khabiir reer Masar ayuu ahaa ninkaas oo xabaasha la qodayay ninka la yiraahdo Cavon xabaartu waxay ka wadaan sanduuqii ninkaasi Fircoon lagu xiray balaa ku dhacday ay furiyeen baa laga wadaa inta badan kooxda Carlen iyo kuwa booqday xabaashi sanadaha hore ka hor waxay u socdeen baa la yiri inay noolaadaan daad waafaqsan rajada nolosha laakiin waqtigaas laakiin markii baa la yiri Cavon nafsadiisa oo dhintay sanadii 1939 saxaafadu waxay haddana sheegay inay heleen masaafo ama warar badan oo ku saabsan sheekadii inkaarta ee hooyada oo ay markii hore hereen ayay tanasaas ay u dhigeen waa faraacintii hore reer Masar iyo waxa afka qalaad lagu yeelo Maythaliska ama sheeko Berley
laakiin tan booqashada ninkan Britishka oo booqday waa mid run ah iyo waxyaalo kale oo khuraafaad ah ayay isugu dareen haddii aad qisooyinkan lamida jeceshahay fadlan channel subscribe iyo nala joogo ra'yigaaga commentiga noogu soo bixi oo ku cajiib geliya nabaday